السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan idil ahaantiin meel kasta joogtaan. insha Allah tacaala maanta waxaynu qaadan doonaa ama aynu ka wada sheekeysan doonaa barnaamijkeenii cilaaqaadka wanaagsan ama waxaynu u magac darnay good relationship aynu wax ka mid ah hore usoo qaadanay wiigii hore. insha Allah tacaala isbuucan ama wiigan waxa aynu ka wada sheekeysan doonaa qayb ka mid ah xiriiradaas aynu hore usoo tilmaamnay. si aynu isla jaan qaadno waxaynu mawduucan ka horreeyey kaga soo warramay xiriirada iyo waxay yihiin ama calaaqaadku waxay yihiin ama relationshipku waxay yihiin. waxaynu ka soo warramay inay yihiin xiriiradu waxyaabaha qofku sida laasimka ama sida dabiiciga ugu baahan yahay inuu yeesho ama inuu iska dhiso ama inuu lahaado. waxaan soo tilmaamay inaanu qofku hadduu doonayo inuu nolol wanaagsan ku noolaado iyo nolol fiican ku noolaado inay lagama maarmaan tahay ama ay ka mid tahay waxyaabaha daruuriyaadka qofku inuu yeesho xiriirku noocu doonaba ha ahaadee ama ha wanaagsan ama ha xumaadee. laakiin waxyaabaha qofku daruuriyaadka u ah inay ka mid yihiin xiriirada maadaama aynu ku noolnahay aynu nahay ummad ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigay qaarba qaarka kale kuwa ku tiirsan. waxaan sidoo kale kasoo warranay xiriiradu inay leeyihiin qaybo oo ay noocyo kala duwan leeyihiin iyo inay stage kala duwan maraan iyo heerar kala duwan maraan. insha Allah tacaala maanta waxaynu ka warrami doonaa qaybahaas xiriirada aynu kasoo tilmaamnay qayb ka mid ah. waxaan ka warrami doonaa maanta xiriirka qofku la leeyahay ama insaanku la leeyahay rabbigii. waxaan odhan karaynaa marka koowaad waxaan odhan karaynaa aadamahoo dhan ama makhluuqaadkao dhan waxay ka siman yihiin inay si daruuriya ugu baahan yihiin inay yeeshaan calaaqaad ama relationship inay yeeshaan. relationshipkaas oo ay la yeelanayaan xiriirkaas oo ay la yeelanayaan rabbigood makhluuqaadkao dhan way ka siman yihiin. xiriirka ay la yeelanayaan rabbiga ama culimada qaar ha ku magacaabaan calaaqa ruuxaaniya ama dadka qaar ha ku magacaabaan spiritual relationship ama lagu magacaabo calaaqa maca rabbi ha lagu magacaabay. laakiin waa wax laga siman yahay qofku inuu yeesho ama insaanku ama makhluuqaadka gebi ahaantii inay yeeshaan calaaqaad iyo xiriir ay leeyihiin rabbigood. waxaan isticmaali karnaa odhan karnaa cibaado makhluuqaadku inay rabbigood caabudayaan oo ay rabbigood caabudayaan oo ay rabbigood cibaadada ula qasdayaan waa wax ay makhluuqaadkao dhan ka siman yihiin baan odhan karaynaa. waa ilaahi subxaana wa tacaala marka uu xitaa tilmaamayay insaanka marka laga yimaado ilaahi subxaana wa tacaala markuu tilmaamayay ashyaada iyo markuu tilmaamayay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inaynan inagu tasbiixdooda iyo cibaadadooda inaynan garanayn walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum inay tasbiixsanayaan rabbu inoo tilmaamay laakiin inagu awoodda aynu ku garanaynin malihin. markii ilaahi subxaana wa tacaala waxyigan soo dejinayay ilaahi subxana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay inuu u bandhigay samaawaadka iyo arlada inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalard waaljibaal. ilaahi subxana wa tacala wuxuu inoo tilmaamay inuu cirka aynu arkayno intaa leeg iyo dhulka aynu arkayno toddobada dhulka kooban iyo toddobadaas samood ilaahi subxana wa tacaala amaanada u bandhigay. sidoo kale buuraha aynu ognahay inta aasan iyo inta muuqatayna inta aasan badan tahay. haddana ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay inay intaasoo dhan diideen cabsi ay ka cabsanayaan rabbigood. deetana faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan deetana insaanka u xambaaray. waana dee ilaahi subxaana wa tacaala karaamo insaanka karaameeyey. ilahi subxana wa tacaala waa ka tilmaamaya laqad karamna bani aadama. marka waxaynu odhan karaynaa waa xiriir markaa ama ay makhluuqaadkao dhan ka siman yihiin ha lagu kala duwanaado oo dadka qaar aaliha baadila ha samaystaan ama aaliha kale ha yeeshaan ama rabbiyaal kale ha samaystaan oo qaar waxaa jir la heli karaya qaar dibi caabuday. waxaa la heli karaya sidoo kale qaar hawadooda caabuday oo sida ay u badan yihiin iminka qolada mulxidiinta ama atheismka ama agnosticka ama la adri kuwa loo yaqaan wax kuwaasoo dhan say u badan yihiin waxa weeyaan hawadoodii bay ilaah ka dhigteen. ilahi subxana wa tacaala bay nooga warramay afarayta man ittakhada ilaahu hawa bal ka warram ilahi subxana wa tacaala leeyahay dadka hawadooda ilaah ka dhigtay. marka pointiga muhiimka waxa weeyaan qofku inuu calaaqa ruuxaaniya yeesho waa laga maarmaan waa laga siman yahay waa shay laga siman yahay ha lagu kala duwanaado markaa rabbiga saxda ah oo ilaahi subxaana wa tacaala inagu waxaynu aaminsanay ka muslimiin allah jiro keli ah koonkan ku tasarrufaya. culimada muslimiinta markay leeyihiin
markay soo qaadeen kelmadan laa ilaaha ila allah waxay yidhahdeen waxay ka kooban tahay laba rukni bay ka kooban tahay. labadaa rukni ay ka kooban tahay rukni waxa weeyaan waxbuu nafiyayaa, waxbuu diidayaa, ruknina waxbuu sugayaa. waa nafyi ithbaat bay ka kooban tahay. laa ilaaha illa allahna waxbay diidaysaa, ila allahna waxbay sugaysaa. culimadu markaa waxa ay ku macneeyaan laa ilaaha ila allah laa macbuuda bixaqin, macnaheedu waxa weeyaan aaliha kaloo baatila way jiraan oo la caabudo. ilahay baa subxana wataala qur-aanka kaga warmay, laakiin rabbiga saxda ahi waa allah keliya. waa rabbi keli ah, kownkan ku tasarufa, isagu keligii maamula, cibaadadana mutaystay. marka ka muslim ahaan inagu waxaynu aaminsanahay inuu jiro rabbi keli ah adduunkan maamulaya, raaqib ah, oo wax aynu sameynayno og, ka warqaba magaranaysaa wax allaala waxa koonkan ka dhacaya. diidista marka rabbigaas dadku ay diidaan ama makhluuqaadku ay diidaan ama insaanku uu diido madax adeeg awgeed uu diido, waa waxa sababaha inay noloshu qofka ku ciriiriyoodo, dhammaan xidhiidhadoo kaloo dhanna ay fasahaadaan oo ay dumaan. waxaynu soo tilmaamnay mawduucii kore oo dhac ahaa in xidhiidhada oo xumaada ay qofka ku sababaan warwariyo walbahaar fara badan, taasuna ay u sababtay inuu xitaa marka qaar naftiisa u dilaba markuu garan waayo meel allaala meel uu socdo. ilahay baa subxana watacaala qur-aanka lagu tilmaamay waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka. wuxuu leeyahay ilahi subxana watacaala qofka iska diida warkayga, waxyigayga qofka iska diida, ka jeesta, icraab gebi ahaantii ahba ka jeesta waxyigayga oo iska diida, wuxuu ku noolaanaya ilahi subxana watacaala nolol ciriiri ah oo dayiqa ayuu ku noolaanaya. fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa. adduunkan inta la joogo nolosha cirigaa ku noolaanaya. aakhire laakiin maxaa damaynaya? wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa. maalinta aakhirena waxaa lasoo kulminaya isagoo indhala. qaala rabbi lima xashartanii acmaa buu markaa ku doodaya, maxaa rabbiyo iisoo xashrisa oo iisoo kulmisa maanta anigoo maalintii adduunyadan joogay indhahayga qabay. ilahi subxana wataala ka odhanaya kadalika, ilahi waa kan subxana wataala ka odhanaya sidaad aayadahayga sidaad loo ilowday ayaa maanta aniguna ku ilowday. marka waxaan uga socdaa ina waxaan aaminsanahay allah ka muslimaan, waxaan aaminsanahay mu'min ahaan, waxaan aaminsanahay inuu jiro rabbi keli ah adduunkan ku tasarufaya. qul huwa allahu axad laa ilaaha ila allah aynagu aaminsanahay. rabbigaas wuxuu ku sifooyey sifooyin ah inuu yahay mid ogaal badan, arkaya, maqlayo wax allaala waxa aynu koonkan ka samaynayno. isla markaana maalin ay jirto qiyaamo la yidhaahdo ama yowmal qiyaamo la yidhaahdo oo dadka lasoo xaadirinayo, laguna goobtaana lagu abaalmarin doono qofku waxa uu shaqaystay, khayr buu shaqaystay, si xumaan buu shaqaystay. fi hada almanduur markaa qofka muslimka ah hadduu manduurka noocaasa ku noolaado ama aragtida noocaasa qofka hadduu muslimka aaminsan yahay oo ku nool yahay, waxa uu ogaanayaa qofka muslimka ahi in maalin dambe la xisaabin doono. sidaa awgeed uu maanta wanaajisto wax kasta uu falayo ama wax kastoo qabanaya uu wanaajisto oo serious noqdo, hadday noqoto xiriirka uu naftiisa la leeyahay iyo hadday noqoto xiriirka uu dadka kala leeyahay. fi hada almanduur waxa wanaagsanaanaya xidhiidhadii kale oo dhan. markaan idin lahaa xidhiidhada kale oo dhan waxay tabac u yihiin ama ay daba socdaan xiriirkan koowaad ee aynugu magac darnay calaaqatu maca allah ama calaaqatu maca rabb. calaaqada qofku la leeyahay rabbigii ama relationship, spiritual relationship qofka xiriirkan uu la leeyahay rabbigii. marka aynu leenahay waxa weeyaan markaan leenahay xidhiidhada kale dhan waxay tabac u yihiin xiriirkan, waxaynu uga jeednaa haddii qofkan xiriirkan uu wanaajiyo oo qofka muslimka manduurkaa ku xisaabtamo, waxaa wanaagsanaanaya xidhiidhadii kaloo dhan. oo daa'iman waxay yidhahdaan culimadu xidhiidhada contractual relationshipka ah ama calaaqa tacaqudiya xidhiidhada loo yaqaana ee dadka basharka ka wada dhexaysa waxay ku dhisan yihiin monitoring and evaluation ayay ku dhisan yihiin ama controlling bay ku dhisan yihiin in la control oo laga warhayo xidhiidhadaas hadba halkay marayaan in laga warhayo. for example walilahi almathalu laclaaye qofka iyo line managerkiisa ama supervisorkiisa ama maamulihiisu waxaa ka dhexeeya qofka markuu soo hayargareynaya contract u saxeexa ama shaqaaluhu contract u saxeexa. shaqaaluhu marka inta uu arkayo supervisorkiisa iyo maamulihiisu ayaa waxuu isku dayayaa inuu dadaalo oo shaqadii sidii ugu wanaagsan inuu ka soo baxo.
hadduu meesha ka baxo line managerka supervisorkii maamulkiisa hadduu meesha ka baxo ama intuu aragtidiisa meesha ka baxdo ama kawarqabkiisa meesha ka baxo waxa isku daya qofkaas inuu zagsaago oo waxyaabo badan leexleexiyo isku daya. marka kullama aragtidii kawarqabkii meesha ay ka baxdo contractual relationshipska kullama ay aragtidii kawarqabkii meesha ka baxo xidhiidhii way nusqaamaya. kullama ay aragtidii kawarqabkii iyo controlkii uu batana xidhiidhii way xoogaysanayaan. marka walillahi almathalu ala qofka muslimka hadduu ku xisaabtamayo rabbi xisaabinayo og waxa uu samaynayo og yahayna imtixaanka had iyo gooraale dadka natiijada looma sii sheego imtixaanka su'aalaha looma sii sheego. laakiin maanta su'aashii waa lagu soo sheego waxa lagu yiri haddii aad aakhiradaada u tudidna maanta aakhirada waad guulaysanaysaa. haddaad aakhiradaada u baqan weydo wax kasta iska samaysidna maanta aakhirada waad halaagsamaysaa. marka qofku muslimka ah hadduu manduurka ku nool yahay wuxuu isku dayaa xidhada kale automatic uu wanaajiyo. wuxuu ogaanaya naftiisu xaq u leedahay oo naftiisu wayna nafsika calayka xaqun iyo naftiisu xaq u leedahay. wuxuu ogaanaya xidhada kala dhexeeya inuu wanaajiyo dadka kale inay xaq u leeyihiin ayuu ogaanaya. gaal iyo muslimba jiiraan iyo mid fogba qaraabo iyo ehelba. marka insha allahu tacaala su-aashu markaa waxaynu isweydiinaynaa hadday xidhadu sidaa yihiin xidhka rabbi uu sidaa yahay sidaana muhiim u yahay. su-aasha isweydiinta leh waxa weeyaan sidee loo xoojin karayaa xidhiidhkaas ama sidee loo wanaajin karayaa. absolutely xidhiidhkaas loo wanaajin karayaa. saddex qodob baad ku wanaajin karaysaa xidhiidhkaas. waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacaala inaad warkiisa inaad weelaysid oo rumaysid. atasdiiqu biakhbaarihi inaad الله سبحانه وتعالى وحيه سئنة رميسي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الله سبحانه وتعالى وركيسة إن دويليسد وأد رميسي exactly سيديتين أد رميسي. قضب كلابات وحويا إن أد ربي سبحانه وتعالى أقدارتيسة wuxuu kuu qadaray ee kuu jaangooyay in aad ku qanacdid oo aad raali ku noqotid. waxa weeye arrinta biaqdaari inaad qadarta rabbi waxa rabbi subxaanahu wa tacaala kuu qadaray inaad raali ku noqotid. qodobka saddexaad waxa weeyaan inaad rabbi subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa iyo waxa uu ku farayo iyo sharcigiisa hadigiisa inaad raacdid iyo siraad mustaqiimkiisa inaad raacdid oo qaadid. waxa weeyaan al-ittibaacu bi awaamirihi. saddexdaas shay hadda la timaadid waxa wanaagsanaya xiriirka adiga rabbiga ka dhaxeeya. waxaan noqonaysaa qof quman. waxaan ku darayaa jacayl ku daro saddex amal. waxa jira intaan saddexda amal sheegin thousands of days kumanaan kun oo amal oo aad ku xoojin karaysid xiriirka rabbiga la leedahay. kumanaankaas waa cibaadooyin. laakiin waxaan ka soo xulanayaa saddex amal oo aan isleeyahay haddii aad samaysid waxa xoogaysanaya oo kobcaya oo kordhaya adiga iyo rabbiga xiriirka aad leedihiin. camalka koowaad haddii aad samaysid camal yar oo adiga iyo rabbiga idin dhexeeya isla markaana aad u samaysay rabbi subxaanahu wa tacaala dartii allah subxaanahu wa tacaala dartii aad u samaysay. camalkaas walow kaana haba ahaado camal yar haba ahaadee nabiga calayhi salaatu wasalaam suu tilmaamay xabu lacmaali ila allahi adwamuha waynaqal. camalkaas camal yar ba ahaadee laakiin camalka aad joogtaysid. waxa hubaal ah inaad maalmaha adag inta dunida ku nooshay maanta aakhirada inta marka laga yimaado maanta oo dunida nool yahay maalmaha adaga ciriiriga aad soo gashay xiriiriga aad la kulantay inaad ku baxsan doontid. hal qisaan ka soo qaadanaya camalka ay aad samaynaysid. camalka wax allaala wuxuu doono noqonayaa salaad buu noqonayaa samafal waalid buu noqonayaa xumaanad ka biisu noqonayaa camal kale adiga iyo rabbi subxaanahu wa tacaala idin dhexeeya. laakiin bisharti camalkaas waa inuu sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku sugnaadaa. waa inaanu ikhlaas maxdiyana waa inuu hadaana ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna aan la wadaajin ama riya ama istus ama waxaas inaan soo gelin. hal qisaan ka xusaya qisada ma faahfaahinay laakiin waan xusayaa. waad ogtihiin
waad ka wada dheregsantahay, waad garanaysaa qisadii saddexdii nin god ka galay ee dhagaxiis ku awday godka. saddexdaa nin walba camal buu ilaahay subxaana watacaala ku bariyey inuu godkaas ilaahay subxaana watacaala dhagaxa ka faydo, oo ducaday ducaysanayeen waxay ugu tawasuleen rabbi subxaana watacaala camal yar oo wanaagsan oo ay sameeyeen, oo ilaahay subxaana watacaala dartii ay u sameeyeen. camalkaas yara ikhtibaaga adiga ilaahay subxaana watacaala idin dhexeeya. sida nimankaas culimadu waxay tilmaamaan saddexduba saddex camal oo kala duwan bay rabbi subxaana watacaala ku baryeen. waxaa la yaab leh qisadu mucjisooyin badan bay leedahay, mar baynu insha allahu tacaala ka warrami doonaa. saddexduba markii uu kii koowaad ku bariyey inbuu dhagaxii faydiyey, kii labaadna inbuu faydiyey, laakiin mar walba ilaa ka saddexaad rabbi subxaana watacaala baryo ilaahi subxana watacaala dhagaxa ka faydayo, labada horoo dhanba dhagaxu intuu faydmay in qof mari karaya ma yahayn. marka camalkaa yar saasu maalmaha adag saasuu ku caawinaya. camalka labaad waxa weeyaan inaad lahaatid wardi quraan akhris, oo inaad kalaamu rabbi alcaalamiin kalaam allah inaad ka lahaatid hadaf iyo wardi iyo quraan akhris inaad ka lahaatid ood la noolaatid. waxaan saa u leeyahay nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu tilmaamay dhulka guudkiisa inuu ilaahay subxaana watacaala ku leeyahay ehel isaga khaas u ah. nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu tilmaamay hum ahlu lqur'aani wa khaasatuhu, waa kuwa qur-aanka ku camal fala, alfaadiisa iyo xuruuftiisana dhowra, ama xiftaa ku dhowran ama akhriyaan labadaba, waa kuwa qur-aanka ku camal fala. camalfalku hama noqdo inay qur-aanka akhriyaan iyo inay ku dhaqmaan. asxaabtu waxay tilmaameen inay dhowr aayadood soo barin jiray, dhowrka aayadood ay macnihiisa fahmi jireen, kadib ay ku camal fali jireen, kadib ay u gudbi jireen aayadaha kale. marka wardigaa qur-aan akhris haba yaraado maalintii jis, haddaad ka bedin kartid 3 jis, haddaad kugu adag tahay xisbi, laakiin laazim waa inuu camalkaas camal joogtaa noqdaa. wardigaa qur-aan akhriska inaad lahaatid waxaad ka mid noqonaysaa marka ehelkaa ilaahi subxaana watacaala tilmaamay uu leeyahay ina lillahi ahlina fi lard. ilaahi subxaana watacaala ku tilmaamay nabigu alayhi salatu wasalaam ku tilmaamay hum ahlu lqur'aani wa khaasatuhu, nabigu alayhi salatu wasalaam ku tilmaamay. camalka saddexaad isna xoojinaya xiriirka aad adiga iyo rabbi leedihiin waxa weeyaan inaad u badnaatid masaajidda. masaajiddu waxay ka mid yihiin ama waxay yihiin axabu lbiqaaci ila allahi, suu nabigu alayhi salatu wasalaam tilmaamay. marka masaajidda oo aad la noolaatid, ood u dhawaatid, ood ka ag dhawaatid, waxay kugu saacidaysaa inaad xiriirka aad rabbigaa wada leedihiin inuu xoogaysto oo kaco. cala laqal haddaad kari weydid inaad isku daydid inaad 5 waqti inaad ilaalisid, wallow aan odhan karayo si culimadu badan yihiin, daliilkuna tilmaamay wuxuu tilmaamay labku inay waajib ku tahay inay 5 waqti masaajidda ku tukadaan oo jamaaca xaadiraan. qofkii kari kara ayaan cudurdaar haysan masaajidda ku tukado. marka inaad 5 waqti cala laqal 5 waqti ku ilaalisid, oo aad wardiga iyo dikriga aad halkaa ku akhridid salaadaha ka dambeeya la akhriyo. haddaad ku dari karaysa inaad ku daydid inaad dersi masaajidka ka baxaya, duruusta xalqadaha masaajidka ka socda inaad mid ka mid a xaadirtid, waxay taas kaa saacidaysaa inaad ka mid noqotid kuwa allah subxaana watacaala ku xusa maalinta yawma qiyaamad, kuwa allah subxaana watacaala ku xusa samaawaadka malaa'igtiisa uga sheekeeyo uu ku xuso ayaad ka mid noqonaysaa. waxay kuga caawinaysaa inuu rabbi subxaana watacaala kaa raali noqdo oo ku jeclaado. intaasaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo. intaan ku kulmi doono xalqadda xigta waxaan idinkaga tegayaa fi amaan illah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.